madaxweynihii hore ee wadanka Mareykanka Barack Obama ayaa soo booqday Yurub si uu xog waraysi ula yeesho 11 dhalinyaro oo qabanqaabiyaal oo lagu tilmaamay in ay noqon karaan madaxda iyo hogaamiyaasha mustaqbalka. dhalinyaradan oo ka kala yimid dacallada Yurub ayaa hadda waxay ka shaqeeyaan arrimaha bulshada rayidka. haddaba dhalinyaradan la kulantay madaxweynihii hore ee Mareykanka Obama waxaa ka mid ahayd Marian Abdulkarim oo ah qoraa ku nool wadanka Finland oo dalalka Scandinavianka laga soo xushay. Marian soo dhawow marka hore waxaan rabaa inaan ku weydiiyo bal sidoo u dhacay kulankiinii aad Obama la yeelateen. waad mahadsan tahay intaad ii yeerteen kulanka madaxweynihii hore Obama aynu la nahayn horta marka wuxuu ka dhacay magaalada Amsterdam ee ku taal dalka Netherland. waxa saad sheegtay 11 baynu ahayn dadka loo yeeray marka meeshaas ay muddo saacad oo kale waxaan ku wada hadlaynay mustaqbalka Yurub dhalinyarada dhibaatooyinka ay la kulmaan habka loo saacidi karo dadka dhalinyarta ee Yurub degan si ay uga qayb qaataan arrimaha noloshooda wax ka saameynaya. waan gartay marka adigu waliba waxa si gaar lagaaga soo xushay dalalka Scandinavianka marka Marian ma noo sheegi kartaa sababta lagu soo xushay iyo waxa aad qabato. horta sababta aniga ii doorteen saa ugama warrami karo laakiin hawsha aan Finland ka qabto ama yani arrimaha aynu anaga qabano dadka wadanka Finland we call it anti-racist yani cunsurnimada dadka soo horjeeda dadka isku dayay bulshada in ay ka hadlaan xuquuqda ay bini'aadamka ku leeyihiin midabka rabaan ha ahaadaane iyo haddii sidii Soomaalidana haddii la fiiriyo annaga waxaan dad badan oo waxaa jira Soomaaliya oo ku koray Yurubta Finland oo kale ama Ingiriiska ama dalalka kale ee Yurubeed marka ciyaalkii halkan ku dhashay oo halkan ku barbaaray oo baasaboor laga yaabo wadamada inay ka haystaan waxbarashada ka qaadanaya laakiin bulshada way weli u arkin in ay wadankan xuquuq ku leeyihiin marka arrimahaas oo kale ku doodnaa halkan oo ka hadalnaa. marka si fursadaas aad heshay aad kula kulantay Obama marka maxaad isleedahay waad ka soo kororsatay oo dhiirigelina Amsterdam. deekoytan qof baynu ahayn oo madaxweynaha Obama uu fariistay idinka ah mustaqbalka Yurub ay hadla taa marka dabcan ku dhiirigelinaysaa inteeda kale 10 qof ay kale meesha imaadeen ay ka qayb qaateen waa dad aad u firfircoon oo hawl muhiim ka qabanayaan qof walba dalkiisa marka dadka aynan xiriir la yeesho oo hadda mustaqbalka aynu wada xiriirno oo yani aynu saacidnayntaan awoodno taariikhdeeda faa'iido weyn ayay leedahay saameyn baan ku yeelan doontaa hawshan halkan qabtay iyaga hawshay wadamada ka qabtaan insha Allah. waan gartay waxaad wax yar taabatay dhalinyarada Soomaalida gaar ahaan halkan kuwa ku dhashay ee qurbaha jooga maxaad fariinood fari lahayd ugu dambeyntii. waxaan oran lahaa yani Soomaalinimadiina looma baahna in you don't have to trade it yani looma baahna inaad tirahdaan Soomaali baan ahay ama qofkan aan ahay Soomaali waa tahay taa cid ka qaadan karta ma jirto ma teeda kale bulshada aad degan tahay xuquuq baad ku leedahay xuquuqdaana midabkaaga dartii ma ah xuquuq laga qaadi karo so waxaan oran lahaa xaq baad u leedahay barta aad joogtay bini'aadanimadaada taa marna ha sii dayn haddii lagu dhaho inaad kala doorataa diintaada ama jinsiyadaada asalkaaga ama waddanka aad joogto doorasho noocaas cidina looma baahan inay samayso. aad iyo aad baad u mahadsan tahay Marian waqtiga aadna siisay halkaas aad naga daawanaysaana waa telefishinka BBC Somali.